ma dhahayo aniga federaalka qaybtii ay dumarku ku lahaayeen way ka haystaan ma dhahayo ma xalaalaynayo ma haystaan dumarka lagama tixgelin lama samayn institutionadu ma soo qorin dee waxbaa la qoraa tartan furan qofkii ku yimaado dee waa raganimadii iyo kartidiis iyo hooyadiisa wax soo bartay laakiin shaqaalaha kale ee habraacyada kale oo gaarkaa lagu qoro dumarka way ku liitaan bal waxaad arkaysaa dad ku meel gaara wasaaraduhu soo qorayaan hal gabar kuma jirto 100 hay-adood baa maxaa la yidhaha lagu qorayaa shaqaale hal qof oo gabara oo ku meel gaara oo lacag lagu siiyaa kuma jirto waxay rabaan marka in dumarka Soomaaliyeed ayaga laftigooda ay kacaan institutionada ay u tagaan la xisaabtamaan waxa laga rabo waxaas weyn islaahay laba arina ugu weynaanayso waxa ka soo bixi kara shirkan mid koowaad oo ah horta gabdhaha dhexdooda inay ogaadaan heerkay joogaan tira ahaan iyo tay ahaan iyo mas'uuliyad ahaan heerarka kala duwan talabaadna in runtii laga wada tashto sida loo horumarin karo meelaha ay caqabadaha ka jiraan mid koowaad oo ah caqabadaha dhanka tirada sidii gabdho badan oo jaamacadaha ka soo baxay loogu gacan siin lahaa inay hay'adaha dawladda iyo kuwa private ah ama gaarka loo leeyahay ama hay'adaha caalamiga ah intaba ay shaqo uga heli lahaayeen talabaad oo kuwa hadda shaqeeya sidii tayo loogu yeeli lahaa korna loogu soo qaadi lahaa aqoontooda iyo fursadaha ka qaybgalkooda maamulka hay'adaha dawladda annaga xafiis ra'iisul wasaare ahaana ra'iisul wasaaruhu waa markii ugu horreysay runtii xafiiskiisa heer maamulka gabdhaha uu magacaabo haweenka xogaha joogtada waxaan rajaynaynaa marka gabar wasiir dawladda ama gabar xogaha joogta ama ilaa heer wasaare in la helo ayagoo markaas tayadoodii aqoontooda u tagaaya sidaasaan rajaynaynaa in shirkan ka soo baxaan waxaan rajaynaynaa in uu ka soo bixi doono haddii ilaahay idmo kulankan 3 maalin soconayo ujeedadii loo imaaday inaan ka mid aqanin doono ujeedadaas oo ah in sare loo qaado ama la kobciyo aqoonta iyo waxtarka ay leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale waxaan ogaan doonaa ama aan ku daraasayn doonaa 3 maalin oo meesha aan joogno haddii ilaahay idmo caqabadaha iyo challengeska ay la kulmaan gabdhaha ama waxyaabaha keenay in nambarka gabdhaha oo aad uga yaraado nambarka ragga ee ka shaqeeya xafiisyada dawladda iyo dhammaan xafiisyada kale ee ka baxsan dawladda waxaan ogaan doonaa haddii ilaahay idmo ma aan gorfayn doonaa khibrado iyo aqoon wadaagsi fara badan oo ka dhex dhici doona midkaan isugu nimid wuxuu yahay inaan ogaano gaabka ka jira dhanka shaqaalaysiinta haweenka iyo sababaha keenay 3 maalmood waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkaas insha Allah biidhnillaahi alkariimna waxaan soo saari doonaa ama ogaan doonaa caqabadaha waxay yihiin iyo way feerwaarka meesha aan aadi doono maantana maalintii koowaad ay tahay oo laga soo wada qayb galay haween badan oo aqoon-yahanaa iyo oo ku kala socda gobollada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir dawladda dhexe iyo bulshada rayidka taasoo lagu gorfayn doono 3 cisho soo socoto sida caqabadaha duruufaha iyo gabdhaha haysto si loo xakameyn lahaa insha Allah wallahi sidii loo sare qaadi lahaa ama loo tayeyn lahaa gabdhaha ka qayb qaadanaya shaqooyinka dawladda waxaan rajaynayaa in qorshe fiican oo ka soo baxo waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay ama aan ka qayb qaato barnaamijkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan dadka isku soo duuliday dadka soo abaabulay dadka soo diyaariyay qorshahan oo juhdigooda iyo dadaalkooda ay geliyeen waxaan aad ugu faraxsanahay in la dhiirigeliyo haweenka ka shaqeeya dawladda maadaama tiradooda hadda ay aad u yar tahay waxaan rajaynayaa kulankan inuu ka soo bixi doono xukuumadda soo socoto in haween badan la shaqaalaysiiyo oo ka tirsan dawladda heer managerial ah agaasimayaal guud agaasimo waaxeedyo ay helaan xubnahooda boqolkiiba 30 ay dhammaystiraan ayna ka bataan weliba boqolkiiba 30 maadaama shaqaale rayid laga hadlaayo shaqaalaha rayidkana aan ugu koobin xataa boqolkiiba 30 ay helaan xuquuqda ragga oo kale si ay ragga u helaan gabdhaha in loo sameeyo wacyigelin inkees haddii xataa gabdhaha maanta ay wax bartaan ay guryaha iska joogaan waxaa lagu dhahaa gabaraa tahay haddaa shaqa doonta xataa ilmahaada ku haynaya saan ku yeelaya taasna waa qalad